Milana Georgiades amba Diams waa heesaayad ku caanbaxday raabka oo caalami ah waana midda ugu caansan hal abuurka albamada ee Faransiiska iyo caalamkaba. maalin maalmaha ka mid ah waxay dareentay cidhiidhi aad u weyn oo nafteeda iyo wali aan dhammaanayn. waxaa loo qaaday dhakhtarka xanuunada maskaxda. laba bilood kadib waxay ka soo baxday dhakhtarkii waxayna soo booqatay saaxiibadeed oo ah muslimad. waxayna aragtay iyadoo tukanaysa oo sujuudaysa weliba si khushuuci ay ku dheehan tahay. waxayna isku dayday Diamis in ay tijaabiso sujuudda inta aanay ka tegin oo aanay dhammaysan booqashadeedii ay ugu timid saaxiibadeed. waxay hadiyad ahaan u siisay saaxiibadeed kitaab qur'aanka kariimka oo ku turjuman luuqadda Faransiiska. markii ay akhrisay Diamis mid ka mid ah safxad qur'aana weliba ay ahayd suuratul mulk. waxay aragtay sir aad u cajiiba oo aad uga nixiyey oo ka dhigay in ay soo gasho diinta Islaamka. bal aan wada aragno maxaa ku dhacay iyo sidii ay ku noqotay fanaanadii raabka muslimad. bal aan ogaano xaqiiqadii ka dambeysay. inta aanan idii bilaabin walaalayaal ha iga ilaawina in aad muuqaalkan like ii saartaan, channelkana aad subscribe ii saartaan, jeeliskana aad furato si ay kuu soo gaadhaan muuqaal ku saabsan qisooyinkan cajiibka. insha Allah aan dhegaysano Diamis iyadoo nooga waramaysa siday Islaamka u soo gashay. maalin ayaan ogaaday inay waxaasoo dhan tahay waxyaabo maalka iyo guusha iyo awooduba in aanay iga dhigin qof faraxsan. waxaan ahaa qof murugaysan, run ahaantiina waxba kamaan ogeyn. waxaana waajibigu ahaa inaan la hadlo Ilaahay. isaga ayaa wax kasta ka og noloshayda, hadday xun tahay iyo hadday fiican tahayba. waxaan ogaa in Ilaahay oo keliya imaqli doono aniga, uuna iga aqbali doono ducadanaan baryayo. waana awooday inaan sugo, aniguna waxaan ogaa oo si yaqiin leh inuu iga aqbali doono. qisada Diamis waa mid ka mid ah qisooyinka ugu cajiibsan. sidee bay isku beddeshay heesaayadii raabka oo ahayd mid heer caalami ah, iyadoo in badan adduunka daafihiisa ka soo dhigtay xaflado iyo bandhig faneed aad u weyn, oo ay u noqotay gabadh muslimada oo xijaaban oo dadka ugu yeedha diinta Islaamka. waxay dhalatay Diamis 1980. hooyadeedna waxay ahayd Faransiis, aabaheedna Greek ayuu ahaa. waxayna ku dhalatay magaalada Greega. markii ay magaalada hooyadeed ka kaxaysay da'deedu wuxuu ahaa 4 sano, iyadoo kula nooleed dalka Faransiiska caasimadda Paris. halkaas ayay ka bilowday Diamis hibadeedii faneed. 1994 ayay aad u soo jiidatay taageero aad u ballaaran, waxayna ka mid noqotay fanaaniinta ugu sarreeya dhanka raabka. heesteedii ugu horreysay waxay ku qaatay afka Faransiiska iyo heeso kaloo badan, waxaana lagaga iibsaday in ka badan 4 milyan. inta u dhaxaysa 1999 iyo 2009 waxayna qalbigooda soo jiidatay malaayiin taageera, waxayna ku guulaysatay abaalmarino badan. laakiin guulaha faraha badan ee gaadhay Diamis marnaba may dareemin farxad nafteeda. welina xidignimadeedii iyo caanimadii waxay kala kulantay cadaab iyo murugo sii kordhaysa. marnaba may noqon qof xasiloon, waxayna murugada isku dhaafin jirtay khamriga iyo daraagiska noocyadiisa kala duwan. markasta waxay diiday jirtay Diamis deganaansho nafteeda iyo in ay hesho xasilooni, heer ay gaadho in ay isku buuqdo oo ay waali u dhawaato. kadibna waxaa loo qaaday dhakhtarka xanuunada maskaxda. qalbi furan iyo hadallo runa oo ay noogu sheegayso Diamis qisadeeda islaamidda, waxayna daboolka inooga qaadaysaa safarkeedii nololeed ee murugiya qaraadhkaba lahaa inta aanay helin xasilooni iyo naxariis.
oo ay ka heshay diinta islaamka ayaa waxay tiri Diams markii ay da'daydu ahayd 4 jir waxaan hooyadii iyo aabbahay u raacay dalka Faransiiska. waxaan ku nooleen nolol aad faqiir u ah. markii aan qaangaadh noqday oo da'daydu ahayd 14 jir waxaan u jeestay dhanka muusikada iyo heesaha, gaar ahaan dhanka raabka, kaasoo aad aan u jeclaa run ahaantii, balse aan ku habbooneen hablaha. waxaan ahaa gabadh aad u firfircoon, balse laakiin iskumaan haysan gabadh. waxaan doortay raabka. 1999 waxaan soo saaray albankaygii ugu horeeyay, waxaana iga soo galay dakhli dhan 4 milyan. markay taariikhdu ahaydna 2003 waxaan soo saaray albankaygii labaad, waxaanan ku noqday mid ay dadkoo dhan wada jecel yihiin heesaheeda, weliba dhanka raabka. waxaanan bilaabay inaan caalamkoo dhan gaarsiiyo fankayga. laakiin 2006 albankii aan soo saaray ayaa wuxuu noqday mid caalamkoo dhan soo jiita. waxaanan sidaa ku noqday heesaayadda ugu weyn dhanka raabka. waxaanan helay taageero aad u ballaadhan iyo lacag badan. waxaanan ka mid noqday fanaaniinta ugu taajirsan. haddaba maalin maalmaha ka mid ah anoo fankayga sii wata oo meel masraxa ka heesaya ayaa waxaan arkay dad aad u fara badan oo ka soo qayb galay. waa dad aad u fara badan oonan malaysan karin. meelo kale oo caalamka ka midana sidaasoo kale ayay uga soo qayb galeen. waxaan lahaan jiray diyaarad sida qumaatiga u kacda ee helikabtarka oo aniga khaas aan u lahaa, oo aan ku tegi jiray meeshaan doono. waxay tiri Diams marka aad leedahay amba aad haysato adduun aad u fara badan iyo magacba, waxay isku dayeen dadku in ay kuu soo dhowaadaan. dhalinyaradu waxay jeclaan jireen in ay arkaan amba ay ii soo dhowaadaan, laakiin anigu maanse jeclaysan jirin. waxaan ahaa mid ka baqaysa dadka marka ii soo dhowaadaan, oo marnaba kuma xasilooneen. si kaste oo adduun iyo magacba aan u helay, marnaba farxad imaysiin, bal ee waxaan ahaan jiray mid murugaysan oo cabsi badan ku jirto. su'aalaha badan oon isweydiinayo oo aan jawaabo u helin way sii badanayeen. shaki iyo stress aad u ballaadhan ayaa maskaxdayda haystay, kaasoo heer i gaarsiiyey waali. mar kaste markan keli ahay waan ooyi jiray anigoo gurigayga ku jira. waxaan isweydiin jiray maxaan aniga u ahay? waa maxay faa'iidada ku jirta? waxaan naftaydii ka dhigay mid khamriga iyo daraagiska isticmaasha. waxaasoo dhanna waxaan u samayn jiray si ay naftaydu u hesho xasilooni, taasoo maskaxdayda gelisay shaki iyo waali. aad ayaan u burburay. taasna cid ila dareensaneed maysa jirin, xitaa taageerayaashayda ku dhow oo noloshayda khaaska waxba kamaysa ogeen. waxay tiri Diams maalinbaa anoo jooga xaflad bandhig faneeda oo sidii caadada ii ahayd sameeyey waxaan samayn jiray. waxaan maqlay taageerayaal ku dhawaaqaya magacayga. kadib si kadisa mar keliya ayay dadkii wada joojiyeen sacabka ay ii tumayeen. waxaan dareemay inaan anigu leeyahay joojiya, waxba ha i sacbinina, idinku waxaad arkaysaanuun muuqaalkayga sare, laakiin gudahayga waxba kuma jiraan oo waa madhan yahay. ahaa, anigu waan madhanahay. waxaan dareemayaa cabsi iyo murugo. anigu ma jecli noloshayda, mana jecli naftayda. markaasaa waxaan leeyahay joojiya, waan idi baryayaa joojiya sacabka iyo foodhida. haddaba 2 maalin kadib waxaan tegay dhakhtarka anigoo dareemaya xanuun maskaxeed iyo cabsi badan oo aan marnaba iga dhammaanayn. kadibna dhakhtarka nafsaanigu wuxuu isku dayay inuu i dejiyo. waxaanu i siiyey dawooyin aad u badan si ay iga dejiyaan murugada i haysa iyo xanuunkan dareemayo. wuxuu isku dayay inuu i caawiyo, laakiin garan maayo isagu sida loo daweeyo murugada. waa xanuun dhanka qalbiga, waa xanuun saameeyey noloshayda, laakiin isaga wax faa'iida kama helin. waa xanuun kaa dhigaya mid ooyaya, waa xanuun kaa dhigaya mid aan qoslayn. haddaba noloshaydii marba marka ku xiga way sii xumaanaysay, xanuunkuna waa igu sii kordhayay. xalna waan u waayey. habeen anigoo xanuunkaas iyo murugadaaba soo arkay, waxaan doonayay hurdo ee maan doonin dhimasho. marnaba dhimashada uma arkayn raaxo, anigoo geeri qarka u saaran oo waxba aan dareensanayn. alla subxaana wa tacaala wuxuu ii qadaray in aan mar kale noolaado. markii lay qaaday dhakhtarada ka mid ah maalmo yar kadib
waxaa lay dhigay dhakhtarka maskaxda waxaana ila dhaqmi jireen sidii qof waalan taasoo ay sababtay habdhaqankayga iyo dabeecadahan cajiibka ah ee aan ku dhaqmayay. waxay tiri Diamis, markii aan waxaasoo dhan aan soo maray dhakhtaro badan oo dhanka maskaxdaana lay soo dhigay waa aan ladnaaday waxaanan ku soo noqday heesahaygii. sidaasoo ay tahay marnaba ma helin xasilooni iyo raaxo. waxay ahayd mushkiladayda ugu weynay. waxaan mar kasta ku fakeri jiray in aanu koonkan jirin alle abuuray aniganay abuuray. marnaba uma haysan in uu jiro ilaah amba ilaahyo koonkan maamula. waxaan wejigayga kor u qaadi jiray oo aan eegi jiray samada oo aan isweydiin jiray maxay samadu u tahay buluug, maxay shimbiruhu u duulayaan, seyaa ka dhigay shimbiraha in ay duulaan, iyo su'aalo badan oo aan u helin weli jawaabo. haddaba maalin anigoo cidhiidhiga weyn ku jira waxaan booqasho ugu tegay saaxiibaday oo ahayd muslimad Faransiisa, asal ahaanna ka soo jeeda dalka Maqrib. annagoo markaa wada fadhina oo weli sheekaysanayna waxay iga codsatay saaxiibaday oo ay igu tiri, iga raallow saaxiib, salaad ayaan soo tukanayaa kadibna waan ku soo noqonayaa. waxaan arkay saaxiibaday oo tukanaysa oo madaxeeda dhulka dhigaysa. waxa igalay dareen ah in aan tijaabiyo sidan ay samaynayso. goorta booskeedii ayaan fadhiistay si aan u sameeyo sida iyadu lahayd. run ahaantiina sideedii oo kale ayaan yeelay, anoon garanayn oo cilmi u lahayn axkaamteeda. waxaanan ku dul sujuuday sijaayadii. waxaan markaa dareemay culays aan la malaysan karin oo aad moodo in 2 buurood la saaray labadayda garab. waxaan dareemay dareen aad u awood badan oo aan weligay allahay marnaba dareemin. kadib waxaan weydiiyey saaxiibaday oo ahayd muslimad, maxaad u tukanaysaana? si farxadi ay ku dheehan tahay ayay iiga jawaabtay. waxayna igu tiri, salaadu waa xidhiidh u dhaxeeya ilaahay iyo addoonkiisa. annaguna ilaahay ayaan ku barinaa oo aan ku magan galnaa. markaa kadib waxay hadiyad ii siisay saaxiibaday kitaabkii muslimiinta oo ahaa kitaabka qur'aanka oo ku turjuman luuqadda Faransiiska. maalinkaa waan dhammaysanay kulankayagii. maalmo ayaan sameeyey in aan tukado salaada subaxdii iyo salaada habeenkii. waxaanan sujuudi jiray sujuud bilaa adkaara, waayo anigu muslim maan ahayn, laakiin deganaansho ayaan dareemi jiray markaan sujuudayo. intaa kadib maalin waxaan u dhoofay oo dalxiis u tegay buuraha Maurice, weliba aniga oo wata kitaabkii, anigoo weliba ka meermeeri jiray akhrintiisa, ilaa ugu dambayntii aan go'aansaday in aan akhriyo. laakiin inta aanan bilaabin akhriskiisa waxaan la yaabay aayadaha cajiibka. mar kastoo aan akhriyo aayad ka hadlaysa abuurista dhulka iyo buuraha, waxaa indhahaygu soo qabtaan buuraha jasiiradda Maurice ku yaala. haddana waxaan akhriyey aayad kale ilaa aan soo gaadhay suuratul mulk. waxaan akhriyey suuraddan weliba aayad aad iga yaabisay. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. markaa kadib waxaan indhahayga kor ugu qaaday samada. markaasaan indhahayga la raacraacay ilaa ay indhuhu iga daaleen. kadibna waxaan ku soo noqday inaan akhriyo aayaddii kale ku xigtay. anna war kaman hayn in aayadaha harsanaa ay leeyihiin ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. markii aan akhriyey waan yaabay waanan naxay. waxaanan dareemay in uu hadalkani aanu marnaba ahayn hadallo bashar. waxaanan ku qancay oo aan dareemay in uu ilaah jiro. waxaan xidhay oo aan daboolay kitaabkii. kadibna markii aan diyaaradda ka soo degay waan cararay oo buur dheer ayaan u cararay. kadibna waan qayliyey weliba cod dheer
ayaa waxaan ku yidhi waan helay runtii kadibna gacmahayga ayaan samada u taagay si aan u qiro jiritaanka ilaahay. waxaanan qiray ilaahay mooye in aan ilaah kala jirin, alkhaaliqu albaari. kelihaan ayaan ku noolaa maalmo jasiiradda Maurice, waxaana wehel ii ahaa kitaabka ilaahay. waxaan dareemay caafimaad badan iyo awood, waxaanan qaatay diinta islaamka. muddo kadib markii aan ku soo noqday magaaladii, anigoon u joojinayn falcelinta ay mujtamaca Faransiisku igu hayeen iyo weliba inta igu xeelan. haddaba dhanka xijaabka, run ahaantii markii hore waan iska diidanaa xijaabka, kadibna si tartiib tartiiba ayaan ku qaatay, waayo markii hore maan jeclan inaan qaato. laakiin markii aan wax badan ka ogaaday islaamka iyo waajibka saaran gabadha muslimadda inay qaadato xijaab, waxaan noqday mid ku qanacsan oo aad ugu dhagan xijaabka. way muslintay Diane, wayna ka fogaatay mugdigii, wayna iska daysay fankii iyo fusuqay ku jirtay. way qaadatay xijaabkii, waxayna noqotay mid difaacda haweenka muslimiinta iyo haweeney walba oo muslimada oo xijaabka diida in ay ku waaniso. waa ilaahay ciddu doono ayuu soo hadeeyaa. waad mahadsantihiin daawadayaasheeda nala socdow. ilaahay haynaga dhigo kuwa wanaagga iskugu yeedha, xumaantana iska fogeeya.